السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن ولا قالقا وان سلامي مeel kasto diga daawataanba maanta waxaan halka la joogaa arigii mar badan haddaad aragteen horta waxa dheer halka ku yaala dadka inta badan laamiyada arki jiro waxa la yiraahdaa wado ama dhabo dabcan marka xogaa wax yar yahay ayaa loo adeegsadaa laakiin dadka qaran dhabaha way dhahaan shaagna waa la yiraahdaa oo baabuurta ayaa isticmaasha marka wadadaas weyn ayaan maanta ariga ku ag ilaalinayaa waqtiga waqti jiidaala mar badan hadda arki jirteen dhul cagaar qurux badan aniga ari la jooga maantana dhulkii sidaas ayuu isku bedelay marka waxaan matalayaa muuqaalkan oon kugu soo gudbinayaa shukaansiga casrigan 2021 ee reemiga iyo shukaansigii hore yacni ama haasaawe markii miyiga la joogo badanaa haasaawe ayaa la adeegsadaa ama matalan ereyga waxa weeye sida saxda ah la soo isticmaali jiray laakiin shukaansi xogaa wuxuu noqonayaa kii magaalada ka jiray marka gabdhihii hore wuxuu waa isku shukaansi gabdhihii hore sidii loo shukaansan jiray kuwa casrigan ayaan muuqaalkan ku soo gudbi doonaa ama aan ku soo gudbi doonaa ugu horeyn hadda muuqaalka wuxuu ku bilaabanaya waxaan matalayaa gabdhihii hore markay ariga ilaalinayaan caws bay gura jireen waxbay samey jireen tuka ayaa dhawaaqaya qofkii yaqaana caws bay gura jireen mayro waxay samey jireen sidoo kale cawska hadda la guray mayro ayaa meeshan laga yiraahdaa waa cawska rarada lagu sameeyo marka cawsku jamac buu noqonayaa dee lagu kala badan yahay midkan mayro ayaa la yiraahdaa lagu sameesto rarada sidoo kale gabdhihii hore gacanta waxbay ka samey jireen marar badan casriga hadda la joogo gabdhaha waxba ma sameeyaan telefoonkooda ayay waxay ka fiirsadaan basadiir waxa iyo maxay tahay riwaayadaha badan halka basadiir ayaad ku arkaysaa baadiyaha marka tagto basadiir baa laga daneeyaa marka kulay telefoonada ay wax ka daawadaan kuwa casrigan markay ariga la joogaan laakiin gabdhihii hore waxay ku mashquul jireen inay caws guraan inay sameeyaan meeraxda yani xarig sameeyaan waxbay ku sameyn jireen marka muuqaalka intiisa hore gabdhihii hore ayaan ku matalayaa arigii baan la joogaa waan halka ku ilaalinaya cawskaygii baan iska guranayaa muhiimadan waxay tahay waxyaabaha inaan idin tusno oo yacni aan action yar anagoo wixii sameynayna aan idin tusno ama aan idin tuso aniga haddii aan ahay dhaqankaaba marka gabdhuhu markay xogaa ariga ilaaliyaan way daalayaan wuxuu qof bini'aadana markuu arigu xasilo cabaar daaqo arigu una cararayn waxoogaa soo ragmad yahay ayay gabdhuhu waxay fadhiistaan geed wiilka idiin muuqday soo ordayeen wuxuu u socdaa gabadhii geedka fadhiday ariga ilaalinaysay ayuu wuxuu doonayaa inuu shukaansado marka shukaansiga saan idin sheegay qaybta hore waa gabdhihii hore gabadhii way booda way istaagtay waxaa markaa berigii hore ceeb ahaa jirtay wiilka iyo gabadhu inay si toos iskaga hor yimaadaan yacni ceeb ayay ahaa jirtay oo geed ayaa lagu meereysan jiray wiilku dhanka shishe ayuu geedka ka istaagi jiray gabadhuna dhanka kale ayay geed ka istaagi jirtay markasta wiilku isku dayo inuu saa u soo wareego gabadha wejigeeda arko iyaduna geedkay kula meereysan jirtay dhanka kale soo istaagi jirtay sheekada waxaa lagu dhamey jiray ila meereyso haddaa hadda maqna berigii hore soo jiri jirtay ila meereyso runtii shukaansiga ila meereysada ayaana aad xiiso u lahaa aniga markaa dooqiga ka hadlo marka maasha Allah waa aniga halka geedka taagtaagan iska war walaayna ayaa lagu yiraahdaa hadduu xitaa ku yaqaano hadalku ku bilaabaya ina hebel haye walaal gogasha ma ii furan tahay ma soo dhawaan karaa walaalo nin waxaan ahay giyaankaaga ah oo waxaan ku yiri mustaqbali guuri doona mala yacniga lagama yaqaano waqtigan la yaqaan lama aqoon jirin damba laga hadli jiray cabaar adigu markii la sheekaysto gabadha ama way aqbale ama way diiday kadibna waxa weeye gabadhii arigeedii iska aadaysaa wiilkuna geeliisii iyo maxay tahay wixii uu raaci jiray ayuu aadi jiray oo dhalinyarada maanta mala yacni inta kale ma ahayn in badan waxa arkaysa dhalinyarada xitaa maanta in meelaha ay ku ciyaarayaan taraq ama tuulooyinka kale iska joogaan raguna waxay raaci jireen xoolaha gabdhuhuna xoolay raaci jireen marka qaybtii hore qaybtaas ayay ahayd gabdhaha dambe ayaa loo yimid gabadhan waa gabadhii dambe casriga telefoon beer salaax ay wadataa telefoonkan beer salaaxa waxaa looga yaqaanaa miyiga waa telefoonada shaashada miyi badan ama baadiye badan baa arka gabdhuhu telefoonay wada wataan iyo wiilashu intaba marka telefoonka ayaa maanta lagu wada xiriiraya waa la soo wacaya haye iyo waran heblaay xageed arigii la joogtaa waxaan arigii la joogaa jeexa halkaa ku yaala ama dooxaas ayaan arigii ku ilaalinayaa saaka aan u raacay ama berinka berin hebel ayaan arigii la joogaa maba la isdhibayo waxweeye gabdhii raggii hore gabdhaha ayagoo ariga la jooga kasoo duldhici jiray ayagoo meel fadhiya sida arkayseen laakiin kuwan waaba la isballansaday marka waa kaa wiilkiina halkaa kasoo socda isagoo markaa meeshii ariga loo raacay loo sheegay wiilashan wiilka hadda soo socda habar baanu ahay walaashay baa dhashayga weyn wiilka kalena eedaanu ahay aan labadaba walaalahay baa kala dhalay muuqaalka marka waxaan ugu talagalnay dee inaan wax yar idin tusno marka halkaasi ariga ilaalinaysaa
وكان واشكان سيجي دنبه تلفون بوشكت ماشي ساك أرجع راعدي هالكا سوقو إيمانيا لكن مر والبا shukaansiga ka jira baadiyaha ama baadiyaha yani dadka dhalinyarada maanta ku wada sheekaysanaya ma wada dhaqan xumo maanta magaalada waxa ka jira laakiin marka qaar baa laga helaa rag aan la isku aamini karin oo yani aan maanta kalsooni lagu qabi karin laakiin wiilka baadiyaha jooga si walba meel cilla aad ugu kulantaan ama isku aragtaan waxa weeye wax ma ka cabsanaysid ama inuu kugu soo xadgudbo hal intaas la isku jirsanaya cabaar baa la isku jirsanaya يعني واشكانسي مر والبا كي هربا كبدلناده dadku mar walba mustaqbal laga wada hadlayo oo waxa weeye wiilkuna oonan kugu soo xad gudbeen marka arigii uu la ilaalinaya lama arkaan kurgeedkii la isku qari jiray waxa lama arko maanta waqtigan baadiyaha la joogo wadinka u jeeda hadii geedka awalba midba dhanka taagnaa hadda waaba la isku yimid arigii baa la wada ilaaliyay kadibna cabaar baa geedka lagu sheekaysanaya waxaan ku yiri waxa laga sheekaysanayaa caawa sidii la isku tagi lahaa wasla arki doonaa muuqaalka dhexdiisa labadan qof waxaan mataleynaa inaan isfahanay oo marka aan qorsheysanayno in caawa aan isla baxno maadaama sheekadeenna muddo ay soo socotay isla bixitaankaasuna dhaqan buu ka yahay miyiga oo waxa weeye dhalinyaradu badanaa boqolkiiba 80 guryaha la dhisayo ama dhisan ama aroosyada aan idin soo dubay dhalinyaradu way isla baxday yani wiilka gabadhu way ismasaafaysteen marka aqalkii baan joogaa waa habeen gooshii baan la soo baxay halka ayaan dhigtay dadka qaar baa laga yaabaa inay isdhahan baadiyaha yani gabdhuhu banaanka saxdan gabdhaha horta horena qaarkood banaanka way seexan jireen kuwa hadda joogana qaarkood banaanka way jiftaan laakiin inta badanna guryaha ayay gabdhuhu seexdaan marka anagu maadaama aan sameynino yani muuqaal aan sameynino guriga nooma suurtagelayso halka banaanka ayaan seexanay marka gabadhii saaka ay ninkii la soo balantay oo waxa weeye sheekadii la soo dhameeyay caawana waxa weeye waa la isku imaanayaa waxyaaba marka isbedel waxa kamid ah habeenkii marka ay noqoto horta habeenkii dhaadiis baa la yiraahdaa oo yani habeenkii shukaansi ama dhaadiis ama haasaawid inta baa la yiraahdaa rag way soo guurayeen gabadhu markay meesha seexanayso ayay yimaadaan casrigii hore raggu maxay telefoon ma jirin marka qaar ayagoo gabadha raadinaya ayayba islaanta ku qaldi jireen ama hooyada laakiin hadda waxay u sheegtay telefoonku ka soo wacay meesha ay seexanayso haddii aqalka seexanayso waa u sheegtay haddii banaanka seexanayso waliba meesha ay ka seexanayso ayay u sheegtay aqalka marka halkaas ayuu gadaal buu kala wareegaya waxa ka cabsanaya odagii ama habartii inay meelaha uga jeedo marka horeyba ugu sheegtay meesha ay seexanaysay waa ka uu imaanaya uu kicinaya wuxuu leeyahay si yar oo aqlaaqiyana ayuu u kicinayaa waxa weeye meesha la isku masaqajaamo balaayin kama jirto dadka qaar baa u yaqaan dabagur laakiin dabagur wuxuu ka jiraa tuulooyinka ayaa ugu horeysay iyo magaalooyinka baadiyaha ninka gabar u imaanaya si uu kicinaya maradu wax yar ka soo qabanaya sida arkaysan kadibna wuxuu leeyahay walaalkaali soo sheekay marka bariga hore gabdhuhu dayrka dhexdiisa ama ardaaga ay ragga ugu sheekay jireen laakiin maanta waxa isbedelay waxay tahay gabadha banaanka ugu soo sheekeynaysa waa casrigan lagu jiro maanta in gabdhuhu banaanka u soo baxaan ma qurux badna waalidku kuma qanacsana badana way ka dhuuntaan laakiin waa dhalinyaradu waxay la soo baxday oo sanadahan la yimid waayo barigii hore aabahay iyo hooyadii iyo walaalihii halka jiifa ayay gabadhuna wax weey loo imaa jiray oo halka lagu la sheekaysan jiray laakiin dhaqankii waa isbedelay banaanka ayaa la isku la baxaya marka waa taa xasiiga ku jiftay way laabtay kadibna islaantii bay iska fiirinaysaa wax banaanka aadayay bay iska dhigaysaa iyadoo markaa shukaansi u socota bariga hore meesha xasiiga ama gogasha u jeedaan gabdhuhu gogol ay sameysteen ayay ku seexan jireen laakiin adduunkii uu isbedelay marka way soo baxday banaanka hore ayuu ku sugayaa wiilkii ay la sheekaysan lahayd caagadi halkaas bay iska dhigtay islaantii baad ugu iska fiirinaysaa kadibna waxa weeye meeshii lagu ballabay ayaa la tegayaa oo waxa weeye loogu soo sheekaynayaa wiilkii meeshaas idin muuqata ayaa la wada imaanaya kalsoonida jirto waxay tahay yani halka dhibaato kama dhacayso yani ina ninkan ama ku kufsada ama dibku waa la yaqaanaa dhibaatana ma ka jirto marna wax la fiiliyo ama wax deegaanka ka dhaca ma ahanba marka halkaas ayay wada fadhiisteen ugu dambeeyna talada waxa lagu soo gooyay in la isla baxsado oo la tago arrinkaana waxa sabab u ah inta badan dhalinyaradu waxay ku leeyihiin odayaasha haddii aad u tagto oo tiraahdo adeer gabadhaadan ka dooniya waxa leeyahay beelo ninka waaba nin xoolo haysta geel baaba maxay uu dalbanaya odagii taas marka ayaa keenaysa dhalinyaro badan gabdhaha la baxsadaan oo ay leeyihiin odayaasheeda hadaan usoo gogol fadhiisano waxay leeyihiin intaasoo xoolaa keen annagana ma awoodno laakiin si walba gabadha ama ha lala tago ama ha la bixiyo baadiyaha xoolo waa laga bixiyaa marka mawduuceenin intaan ayuu ku ekaa gabadhii ugu dambeyn
dhaqankaaba ay doonto halkaa fadhida waa lala tegayaa waxa weeye reerkii way ka dhumanaysaa waana dhaqanka guryo badan oo sida lagu dhiso waxaan leeyahay odayaasha wiilasha ku dhiirigeliya inay idin yimaadaan oo gabdhaha idin weydiistaan waayo diiniyan sidaas ayaa wanaagsan marka khayr badan baa idin rajeenaya dhaqankaabana waa taa waa lala tegay maca salaamo tan iyo intaa ku kulmi doona mawduuciga sidaas iyo nabaadiino muuqaalkana leegta ha la saaro